Qatar waxay ku guuleysatay mid ka mid ah ahdaafta ay loolanka ugu jirtay si dalkeeda lagu qabto koobka adduunka. Reer galbeedka oo farta dhexda ka qaniinsan dad badan ayaa ku soo islaamay koobka adduunka ee Qatar, halka kuwo kalena ay caan ka noqdeen baraha bulshada intii uu koobku socday. Xulalkii Afrikaanka ahaa oo xilli hore isdhiibay maxaa xiddiga Boortaqiis ee Cristiano Ronaldo diiwaanka u galay. Xogahaas iyo kuwo kale oo aan idiin qarinayaba muuqaalkan ayaad kaga bogan doontaan, balse ugu horreyn fadlan muuqaalka like saar, la wadaag asxaabtaada haddii aadan hore noola soconina soo raaco ka mid noqo asxaabteena. Aan ku bilowna ee dalka Qatar ayaa ku guuleystay xaqiijinta mid ka mid ah ahdaaftii uu martigelinta koobka adduunka u dalbaday, taasoo ahayd inuu uga faa'iideysto dacwo faafinta iyo inuu isbedelo fikirka khaldan ee dadyoga reer galbeedka ay ka haystaan diinteena Islaamka. Waxaana uu dalkani sameeyay dadaal walba oo uu dadka ku gaadhsiin karo dacwada, sidii aanu kusoo dul istaagnay muuqaaladii hore. Si uu arrinta u sii xoojiyana waxa uu dalkani casuumay daaciga weyn ee caanka ku ah qabashada doodo waaweyn oo ay dadyo badani kusoo islaamaan, waa Dr. Sheikh Zakir Naik kaasoo isna dhankiisa ka wada doodahaas muhiimka ah. Dhammaan dadaaladaas waaweyn waxay qayb weyn ka qaateen in dad badan oo hore diinteena fikir khaldan uga aaminsanaa ay fahmeen xaqiiqada dhabta ah ee diinta Islaamka. In badan oo dadka ka mid ahna waxay bilaabeen inay raadiyaan xogo dheeraad ah oo diinta Islaamka ku saabsan, halka qaarkoodna ay soo islaameen sida nin Mexican ah oo la dhacay dhaqan wanaagga iyo xidhiidhka joogtada ah ee ay dadka muslimiinta ahi kaga duwan yihiin dhammaan diimaha kale. Ninkan oo shahaadada loo qabanayo ayaana baraha bulshada qabsaday. أشهد أن محمدا رسول الله. الله. Thanks to God who guided you. Read more, brother. This is the translation of the Holy Quran, the last revelation from Allah. Read it. You have to thank Allah that He guided you. Waxaa kale oo si la mid ah ninka Mexicaanka ah soo islaamay qoys dan oo reer Brazil ah. Qoyskani waxay sheegeen inay aad u soo jiiteen dhaqamada iyo caadooyinka u gaarka ah diinta Islaamka, gaar ahaan aadaanka oo ay sheegeen in markii ugu horreysay ay maqleen ay aad u qalbi taabatay, si aad uga duwan gambaleelka kaniisadaha. Waxaa kale oo ay la dhaceen oo qalbi taabtay dhageysiga Qur'aanka. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Allah is one. Allah has no son. Allah is the creator of the whole universe. Abraham is the messenger. Moses is the messenger. Jesus is the messenger. Muhammad is the last messenger of God. Almighty God, we ask you to take us to paradise. To help us to be in paradise with the messengers. And to save us from hellfire. Dhammaan dadka ka qaybgalaya koobka adduunka ee markii ugu horreysay maqlay aadaanka salaadaha waxa ay ka wada markhaati kaceen waxyaabo isku mid ah, sida inay qalbi taabteen aadaanka iyo Qur'aanku, iyo inay aad ula dhaceen xidhiidhka aadka u adag ee ay dadka muslimiinta ah la leeyihiin Ilaahay. Hase ahaatee waxaa warka aad uga xumaaday reer galbeedka, kuwaasoo mar walba ku hawlanaa inay ka gudbiyaan magac xun iyo sifooyin aysan lahayn diinta Islaamku. Dhanka kale waxaa soo shaacbaxay dadyo kala duwan kuwaasoo waxyaabo ay yidhaahdeen caan kaga noqday baraha bulshada intii uu socday koobka adduunku, sida ninkan Metromanka ah ee Kenyaanka ah oo dadka ku haga wadooyinka tareenka, kaasoo baraha bulshada qabsaday ilaa maalinkii uu koobka adduunku bilowday. Waxaa ninkan maalin walba goobtiisa shaqo ugu taga dadyo fara badan, kuwaasoo muuqaalo gaagaaban iskaga soo duuba. Waxaase caanimada ninkan oo kale ku hamiyey dad badan oo ka mid ahaa kuwa dadka ku haga wadooyinka tareenada dhulka hoostiisa mara, iyagoo la arkaya qaarkood oo samaystay halku-dhegyo cajiib ah si ay sida ninkaas oo kale caan uga noqdaan baraha bulshada muddo kooban. Waxaana maanta baraha bulshada caanka ah ilaa 3 Metroman. Dhanka kale dadka baraha bulshada caanka uga noqday muddada kooban ma ahan Metromanada oo keliya ee waxa iyana jira dadyo ka mid ah kuwii ciyaaraha daawanayay, kuwaasoo ficilo ay sameeyeen ama hadallo ay yidhaahdeen caan uga noqday baraha bulshada muddo kooban, sida ninkan Sacuudi ee kadib markii ay xulka dalka garaaceen kii Argentine kusoo caan baxay odhaahyo uu ka yiri TV Aasiyaan ah, kuwaasoo ahaa aaway Messi xaggee aaday. Ninkan ayaana markii ay labada eray u
gadmeen bilaabay inuu tiifiyada kale ee live-ka banaanka garoonka ay ciyaartu ka socoto ku duubayo muuqaalada uu tago oo uu ka yiraahdo erayadii u gadmay ee ahaa aaway Messi xagee aaday. Haatanna wadamada Afrikaanka iyo koobka adduunka inkastoo qaar ka mid ah wadamada Aasiya sida Sacuudiga iyo Japan ay guulo waaweyn ka soo hooyeen koobka adduunka ee sanadkan kadib markii ay garaaceen labada xul waaweyn ee kala ah Argentina iyo Jarmalka, haddana xulalka Afrikaanka ahi weli guulo lagu faani karo kama aysan soo hooyin koobka adduunka ee sanadkan sababtoo ah xulka Senegal waxaa 2-0 uga badiyay Netherlands, Cameroon waxaa 1-0 uga badiyay xulka Switzerland, Ghana waxaa 3-2 uga badiyay Portugiiska, halka wadamada Tunisia iyo Morocco ay barbarac la galeen wadamada Denmark iyo Croatia. Ugu dambeyntii maxaa Ronaldo diiwaanka u galay? Cristiano Ronaldo ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay taariikhda kubadda cagta ee goolal ka dhaliyay 5 koob adduun oo kala duwan 2006, 2010, 2014, 2018 iyo 2022. Muuqaalkana maanta intaa ayuu inooga egyahay.